السلام عليكم. magacaygu waa Mukhtaar. waxaan halkan idinku soo gudbin doonaa mid ka mid ah qisooyinka kuwii guuleystay, kuwaas ama qisooyinkaas oo inoo noqon doona taxanay haddii Ilaahay idmo. maanta waxaynu si weyn oo waafiya uga hadli doonaa hogaamiyihii muslimka ahaa ee Maxamed al-Fatih. ugu horeyn, ma taqaanaa Maxamed al-Fatih? waa amiirkii furtay ee xoreeyay magaalada Qustantiniya Istanbul ee iminka loo yaqaano Istanbul oo ah caasimadda Turkiga. wuxuu dhashay Maxamed al-Fatih 20kii Abril 1429 miilaadiga oo waafaqsan 26kii Rajab 833 hijrada. aabihii waxa uu ahaa amiirka muslimiinta oo ah mid ka mid ah amiiradii dowladdii Cusmaaniyiinta. aabihii si uu u tababaro wiilkiisa waxa uu u qabtay culumo aad u cilmi iyo ilaah ka cabsi badan si ay ugu tarbiyadeeyaan diinta islaamka iyo jihaadka. macallimiintiisa waxaa ka mid ahaa sheekh loo yaqaanay Shamsudiin. sheekhu wiilka yar marka uu cashirka u dhigo ayaa uu maalin walba kaxeeyaa. wuxuu mariyaa xeeliga ama xeebta badda. markaas ayuu sheeda ka tusaa magaalada Qustantiniya oo haydh loo arkayo. markaasuu ku yidhi, ma arkaysaa magaalada halkaas ka muuqata? waxaa lagu soo diri doonaa dowladda islaamka. wuxuu yidhi, rasuulku naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee, lataftaxana alqustantiniya wala nicma alamiiru amiiruha wala nicma aljeyshu dalika aljeysh. xadiiskaas oo macnihiisu yahay Qustantiniya waad furan doontaan oo aad furan doontaan, waxaana nimco iyo khayr oo dhan helay amiirka furtay ayaa ciidanka uu hogaaminayo. maalin kasta xadiiskaas ayaa uu ku dul akhriyaa, wuxuuna sheegaa in cidda xaqiijinaysa ay isaga tahay ee khayrka iyo barakada rasuulku sheegay sallallahu calayhi wasallam helaysa inuu yahay Maxamed al-Fatih. wiilka yar maskaxdiisa ayay ku duubantay arrintaasi. habeenkii marka uu seexdana waxa uu sawirtaa isagoo ciidankii hogaaminaya oo dagaalkii socdo oo dhiigu daadanayo. habeen walba sidaa ayaa uu ku seexdaa, waxaanu niyadda ka goostay inuu noqdo kii furan lahaa Qustantiniya. aabihii oo markaa ahaa amiirkii muslimiinta, wiilka yar waa kaxeeyaa markasta oo jihaad jiro si uu u sii tababarto oo hadhow marka uu xukunka qabto duruustaasi uu anfacdo oo uu barto hogaaminta ciidanka iyo dagaal gelintooda. markii aabihii dhintay isaga ayaa noqday amiirkii muslimiinta. wuxuu ahaa wiil yar oo da'diisu tahay 23 jir keliyata. mushkilado badan ayaa waqtigaasi jiray, gaar ahaan dowladihii gaalada ahaa ee xuduudda la lahaa dowladda islaamka ayaa mid waliba waxay doonaysay inay dhul ballaarsi samayso oo dhulka muslimiinta ay wax ka qaadato. waxaa la sheegaa inuu isku keenay dadkii caqliga, khibradda iyo aqoonta lahaa si ay arrimahaas ugula taliyaan. waxay markaas liis dheer ugu qoreen mushkiladaha tirada badan iyo mid walba sidii loo xalin lahaa. Maxamed al-Fatih markuu arkay mushkiladda tirada badan, haddii mid loo bilaabo xalinteeduna waqti dheer qaadanayso, ayaa waxa uu ku hadlay hadal xikmad noqday oo uu yidhi, noloshayda oo dhan ku dhammaysan maayo mushkiladaha xalintooda. intaa kadib waxa uu qaaday tallaabo muhiim ah oo ah xaqiijinta hadaf weyn oo sharaf iyo qiimo leh. haddii uu kaa ku guulaysana ay dhammaan mushkiladaha kale oo dhammi xalismayaan, waana furashada Qustantiniya ama Istanbul. wuxuu bilaabay inuu isku dabarido dowladda oo uu habeeyo haddii ay tahay mid dhaqaale, mid siyaasadeed iyo mid ciidanba. wuxuu bilaabay markiiba inuu ciidanka awoodda saaro oo tababarkii u dambeeyey siiyo hubka noocii ugu dambeeyey ee waqtigaasna uu ku qalabeeyo. kadibna wuxuu bilaabay inuu wada hadal la yeesho ninkii xukumayay Qustantiniya oo uu ka dalbaday inuu magaaladaasi si nabadgelyo ah uu gacanta ugu soo geliyo. laakiinse boqorkii Qustantiniya arrintaas aad buu u diiday, wuxuuna codsigaas ku tilmaamay waxaan marnaba suurtogal ahayn. kadib ayaa uu Maxamed al-Fatih waxa uu yidhi, laba mid bay noqon: in Qustantiniya aan carshi ku yeesho iyo inaan qabri ku yeesho. markaas ayaa uu dagaal ku qaaday, waxaana la sheegaa dagaalkaasi inuu socday 51 maalmood. dagaal adag oo naf iyo maal badan labada dhinacba ay kaga lumeen.
ugu dambeyntiina waxa uu ku guuleystay inuu furto magaaladaas halkaasna uu ku xaqiijiyay riyadiisii kuna noqday amiirkii ku xaqiiqoobay xadiiskii nebiga sallallahu calayhi wasallam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee in ka badan 7 qarni ayaa amiiradii ka horeeyay mid walba isku dayi jiray inuu furto laakiin waa ku adkaatay waxaase guusha la hoyday wiilka yar ee da'diisu ahayd markaas 23 jir waa arrin mucjiso ah maanta dhalinyarta da'doodu tahay 23 jir waxay ku jiraan gacanta waalidkood oo maba gaadhin goor ay madax banaanaadaan oo isku filnaadaan halkaasna waxaanu ku soo gabagabeynay qiso ka mid ah qisooyinka kuwii guuleysay waana hogaamiyihii muslimka ah furtay magaalada Qustandiniya ee iminkana loo yaqaan Istanbul محمد الفاتح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.